waxaa aad iyo aad xagga dagaalku ugu wareegay maanta ama saacadii abaaradii u dambeeyay dhanka iyo madaxtooyada dhankeeda baa xabadda xooggeedu ka socda walow ay lagu soo waramayo in madaxtooyada ay ka la wareegeen ciidamada BSF hadda waxa gaariga xabadka ku taala dawladdu ay leedahay iyadoo oo uu yaalo wadada Suweyta geedka qabriga agtiisa taas oo ka dhigan in gaariga kan lagu ilaalinayo gaari kale oo sidoo kale wuxuu ka dhacayaa meel u dhow aaga uu ku jiro hadda qoragaas ayaad u moodaa in ciidamadu ay aad u waarsan u ilaashanayaan si bal aan mar kale mid kale looga qabsan iyadoo hadda mid laga qabsaday oo ay kala wareegtay ciidamada BSF taas oo iyada ka dhigan in BSF to ay ilaa iyo hadda gacan sareyso ay dhanka ku gacan sareyso taas waxaad u malaysaa in dawladdu aysan mar dambe isku dayayso inaysan sii dayn ama se uusan gacantooda ka bixin qori kaleeto qoriga kan baa aad waxa looga ilaalinayaa afartiisa gees taayirkana waa laga bedelayaa isagoo taayirka xabadi kaga dhacday taas waxaad u moodaa in taayirka xabadi kaga taal gaariga kan oo laga bedelayo ama ay ka bedelayaan ciidanka iyaguna dhufayso ka dhigtay aaga u dhow waxa hadda la istaariya gaarigii waana kacay waxaad u malaysaa inay istaarkiis hadda la bilaabay hadduu kacay dhaqaaqiis hadduu bilaabaya balse de lama oga jahan loo jahayn doono ma waxa loo jahayn doonaa dhanka xiisada dagaalku ay ka taagan tahay oo ah dhanka madaxtooyada oo ay xiisada dagaalku ay aad ugu xoog badan tahay ama se dagaalku xooggiisa badan uu u wareegay dhankaas iyo madaxtooyada oo madaxtooyada iyo ciidamada dawladda BSF iyo ciidamada dawladdu ay isku hor fadhiyaan foodana ay isku dareen taas oo sababtay in ciidamada dawladdu ay gacantooda ay ka baxdo madaxtooyada oo xoog badankiis uu jiray madaxtooyada taas oo sababtay in madaxtooyadii ay gacantii dawladda ay ka baxayso marba marka ka sii dambaysa saad moodo ciidankuna inuu ku gacan sareeyad u moodaa haddeer waa geedka qabriga Suweyto wadadii dheereed waxaa xiray gaarigii weynaa ama baasuuku qoriga weyn oo suuga uu ka dhacay kaas oo badankiis markii hore ka dhacay aaga xaafadda Suweyto iyo aaga Ridwaan laanta taas oo u moodo in isagu haddeertan la kiciyay oo badankiis haddeertan inuu la gelinayo dhankaas iyo dhanka dagaalka walow ila xogogaal aan waraysa ay ku soo waramayaan ilaa ay hadda waxa dhintay oo lagu soo waramay oo la leeyahay waa uu dhintay balse aanan wili cadeyn taliyihii madaxtooyada Puntland kaas oo isna sidoo kale kaga jira halkaas daafac aad u adag taas oo u malaysay in madaxtooyadu ay tahay meeshii laga maamulayay meesha dagaalka laga soo abaabulayo oo ahayd xafiiskii namse xaruntii ugu xoog wadbeedneed ciidanka Puntland oo ku dagaalamayay saacadii u dambeeyay magaalada Boosaaso waxaad moodaa in saacadaha u dambeeyay ay magaalada isbedelka maaragtay dagaal uu sii xoogaysanayo ayna banaynayaan ciidamadu midba ka dambeeyay dagaalka فضلا أصحابتي شير قرية بيت كنا جالس هذا marka waxaad u moodaa in ciidamada dawladdu ay ilaashanayaan qorigooda weyn oo suuga ah oo kii horeeto oo gacantooda hadda uu ka baxay walow dhimashada iyo dhaawaca ay yihiin kuwa tirada marba marka dambe tiradooda ay sii siyaadayso taasina ay tahay mid ka dhigan in ciidamada dawladda iyo kuwa BSF labadoo dhanba uu khasaaruhu yahay mid aad u xoogaysanaya taasoo labada dhan xooggiisa loo badinayo in ciidanka dawladdu kale ay aad u badan yihiin balse lama hubo lamana soo shaacin lamana cadeyn balse waxaan ilaahay hadda aan ogahay hal askari oo kamid ah ciidamada dawladda inuu ku dhintay oo hospitaalka dhimeedkiisana la geeyay
waxaa sidoo kaleeto lagu soo warramaya in ciidamo kale oo dhaawaca iyagana la dhaafiyey la mariyey oo la geeyey dhanka hosbitaalka sidoo kale waxaa meesha ku dhintay amase ay khasaaruhu saameeyey shacabka ku nool magaalada Boosaaso iyaga oo shacabku ay aad iyo aad uga walwalsanayeen awalba balse iyagoo aan loo ogolaan inay ka soo guuraan xaafadii ay ka deganayeen magaalada Boosaaso ee Ridwaan baa waxa ku bilowday dagaalkii ayaa ku qarxay taasina waxa sababtay in aysan cidnaba ka guurin amase ka qaxin dagaalkuna uu ahaado mid sii xoogaysan marba marka dambaysa موها يوسف قلبي صاحب aad baad mahadsan tahay saaxib in sha Allah waa taxadariya intii away kalaamkayga ama intii dadaalkayga saaxib aad baad mahadsan tahay waxa sidoo kale to aad iyo aad ila soo xiriirayay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan idin socodsiinayaa xogta dhabta ay ka taagan maanta magaalada Boosaaso iyadoo ay dagaalku wili uu sii socdo wadeer uu ku sii qulqulaya abaar 4 saac xiisadda dagaalka oo bilaabatay 4 saac oo barqanimo baa ilaa iyo hadda xiisadda dagaalka ay socotaa oo tahay mid aan marnaba kala joogsi lahayn ay soconaya dagaalku wili waxaa hadda la kiciyey gaarigii weynaa oo la aaga geedka qabriga agtiisa kaas oo ahaa mid ay ciidanka dawladdu ay ilaashanayeen kan gaariga kan noociisa kale ta ah oo gacanta ciidamada ka baxay ayaa ilaa hadda gacanta dawladda ku soo noqon balse waxay xooggiisa saarayaan in maaragtay qorigaasi uu ahaado mid gacantooda ku jira uusan ka bixin mudda dhawaaqa rasaasta xooggeeda in uu jiro dhanka aaga amse xarunta BSF iyo gudaheeda dhankaas aad u malayso in la isku dagaalayo waxaan hadda joogaa garoonka u dhow dhanka xerada BSF iyo masaajidka iyo xalay abaar xalay la isku horfadhiyo taas ayaa hadda ka dhigaysa in ay noqoto mid rasaastu ama hubku noociisa kala duwan oo noqdo mid ka sii xoogaysan marba marka ka dambaysa fadlan asxaabta nagu soo biir nala wadaag nagu soo biir page-kayga kana mid noqon وصوص ما والله هو وصوص والله ما جوعان iyadoo ay shacabku ay aad iyo aad ugu walwalsanayeen balse waxaad moodaa in qaxi ka koray in wadada tan ay tahay mid go'an oo laga sidaadaba bataatan laba gooyay oo laga dhigay mid ka baxsan dawladda gacanta dawladda taas baa u moodaa inay ku jirto waxa sidoo kale iyana jirta in ay duqa degmada Boosaaso uu maanta hadlay uuna ku eedeeyay eedaas in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka qayb tahay ciidamada ka dagaalamaya magaalada Boosaaso taas oo ka dhigaysa in uu yahay mid dagaalka maaragtay ka dhigaysa in ay ku jiraan dagaalada ciidamada gorgor ku dhawaaqay isagu uu yiraahday waxa dagaalka ka qayb ah ciidamada gorgor taas oo ay ku sheegay duqa degmada warsaxaafadeed uu soo saaray taas baa sababtay balse dagaalku wali waa sidiisii wax isbedelan laguma hayo wax waan iyo dhexdhexaadnimo mid toonna ma aysan soo bixin taas ayaa sababaysa inuu dagaalku sii xoogaysto شويتا ما أركض يده يا درمبا صدر ما أركض صاحب gaarigaas u jeedana waa taayiraha laga bixiyay waa gaarigii ciidamada dawladda laga qabsan lahaa balse difaac adag ay galeen awgiis ay ka dhaceen ka riteen balse taayirada ka banjaray awgiis bay hadda dib taayiradiisa u soo kiciyeen taayirna loo galiyay si uu u dhaqaaqo marka waxa kale oo laga baqayaa in uu yahay dagaalku mid ka sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa waxaan ku jirnaa sidayadaba gambasho si aan idinla wadaagno xogta si aan idinku keeno marka idinkuna bal noo sheer gareeya la wadaaga asxaabtiina page-kana ku soo biira idinka oo dadkiina asxaabtiina la wadaagaya
waxaa sidoo kaleeto aad iyo aad xoog u saaran yahay dhanka madaxtooyada iyadoo dee madaxtooyadii ay ka baxday gacantii dowladda balse la rajaynayo inay dowladdu barashar awood badan iyo isbahay soo aruursi badan ay isku daydo inay samayso ka saarid ama sariixid inay dagaalka kala ka saarto balse ilaa iyo hadda ma cadda 24 November digreetadii madaxweyne ay soo baxday mira dhalkeedii maanta wuxuu noqday mid labada fooda ay istaraan labada ciidan iyadoo aan wax waan aanan ka muuqan balse madaxweynuhu uu ka fursan karay in xiisada dagaal ee magaalada ka jirta ay ka dhacdo balse ma uusan u fikir ama uusan ilaalin bulshada ku nool magaalada Boosaaso sida ka soo cusbanaatay magaalada Boosaaso ay tahay mid ka sii dareysa marba marka dambeeya waxaan hadda joogaa geedka qabriga ee Soweto waxa gadaasheeda yaala mid ka mid ah gawaaridii suugu ay saarnaayeen dhamaantood kaas oo gara dhaawac soo gaar ama banjarid soo gaartay awgiis oo ilaa hadda halka u yahay balse waxa difaac adag kaga jira ciidamada dawladda iyagoo ilaashanaya gaarigooda waxa ilaa hadda lagu soo waramay in ay gacanta ka baxday madaxtooyada magaalada madaxtooyada Puntland gaar ahaan tan gobolka Bari iyadoo ilaa hadda lagu soo waramay in taliyihii uu dhintay ciidanka booliska ciidanka madaxtooyada balse ilaa hadda wax cadeyn rasmi ah ma ay jirto oo cadeynaysa in taliyihii madaxtooyada Puntland uu lagu soo waramay inuu dhintay balse wararka la uu dhintay waxaa sidoo kale lagu soo waramaya in xiisadu ay ka sii badnaato sida tan gurmadka ciidankan uu yahay midaan marnaba kala joogsi lahayn ciidamada BSF na iyagana sidoo kale waa difaacooda aad u xiranayaan si ay u xirtaan si aanan loogu soo gelin xerada gudaha waxaan hadda ku suganahay waa mid ka mid ah meelaha dagaalka uu ka socdo xooggiisa badankiisa waxaan idin kala socodsiinayaa wax walba ka soo siyaada waxaad moodaa in ka duwan yahay sida horeeto waanta ka soo baxday duqa degmada Boosaaso waxaad moodaa in duqa degmada Boosaaso uu maanta ku waramay uu yiraahday waxaana la dagaalamaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya isagoo ku eedeeyay in ay dawladda Soomaaliya ku jirto dagaal balse wax cadeyn ah oo ilaa hadda lagu dhigi karo ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku jirta ma ay jirto balse wuxuu ku dhawaaqay inuu yiraahday waxa kamid ah ciidamada gorgor inay ka qayb qaateen dagaalka qaybta ay ka jiraan balse war sax ah oo ilaa hadda la hayo oo ah in ciidamada gorgor ay ku jiraan ma jirto waxaa sidoo kale xoogaysanaya aad iyo aad walow gaariga kan uusan ka dhaqaaqin bartii uu ku banjaray laakiin se la kiciyay balse weli uu yahay mid aan dhaqaaqayn walow lagu soo waramayo xogaha aan helayno in la dilay gaandharigii gaariga saarnaa amase waday amase ka ahaa gaandhariga taasina ilaa hadda ma cadda balse waxaa sidoo kale xoogaalka ku nahay aan helayno ay ka mid yihiin in uu isna sidoo kale uu dhintay yarkii amase gaandharigii gaariga kan weyn oo ah nooca suuga uu ka dhaco waxa aad iyo aad ugu dhintay xaafadda tan amase aaga kan ilaa hadda aan ogahay qof shacab oo kamid ah balse ilaa hadda xaqiiqada dhabta ah amase khasaaraha dhabta ah oo jira lama oga taas ayaa wax walba sababaysa marka wax walba oo ka soo siyaada waa idin la socodsiinaya fadlan page-ka ku soo bir nagala qayb qaado nagu soo bir aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kaga mahad celinaya idinkuna sidoo kaleeto nala wadaaga wixii aad ku haysaan waad ila soo xiriiri kartaan weliba si gaara Garisku. waxaad moodaa in ciidamada gurmadka ugu imaanaya aaga ayeen kuwa sii badan marba marka dambaysa
فهذا وكا قاضي زيتاي الحمد لله والله براقو كوفي عناي war maaragtaa saaxiib mobil gacanta kale mobilkii waa live bank ka jiraayo asxaabtii maaragtay xiisadii dagaal baa saaka aad u sii xoogaysatay oo dawladda waa ka waxay ka mid yihiin shacabka ku waxyeeloobay xiisadda halka ka taagan bay ka mid yihiin saaxiib واكا ما هي فهذا لحظة بس أنا كسوع يا حوجا هيا إن واحد مدة إن xiisadu ay sii horeyso marba marka ka dambaysa aan la garan karin meesha wax jiraan alaykum salaam alxamdulillah diyaar caadi ku warami kara waxay ka dhacayaan madaxtooyada dhankeeda ka dhacayaan waa ka okay يركا عسكري بaa yiri meesha ka dhaqaaqa kulleeday la garan maayo dhan la aado balse ka dhaqaaqo yiri ilaa iyo hadda uu soo socda xaggaas ayuu fariistay waxaan lagu amray inuu bal isku dayo inuu naga dhaqaajiyo aaga aan ka soo waramayno isaga oo gacanta noo haatiniya marba marka dambaysa waxaad moodaa in hubka dhankii rasaasta dhankeeda ama xoogga dagaalku uu u wareegayo dhanka iyo madaxtooyada xoogga badan uu ka jiro dhanka madaxtooyada taasoo dhalisay in madaxtooyadu ay iyaduna sidoo kale ay ka baxdo gacanta dawladda ha waxaad moodaa in dadku ay badankood ay koolka ay aad u soo xariirinayaan fadlan waa idinka cudur daaranayaa inaad samaysaan inaad samaysaan koolka inaydan wicida badan yaraysaan aad iyo aad waan uga caawanayaa sababtoo taleefanka dabkiisu aad buu iga dhacayaa dagaalku wuxuu u wareegay dhanka iyo madaxtooyada calaykum asalaam alxamdulillah waa wanaagsannahay xogaa iska xiise dagaal bes baa ka jirta hadda xiisada dagaal way sii qaboobaysaa way degaysaa hadda aamin insha allah ilaahay nabadgeel insha allah halo halo ها ها maxaad ahayd leefka haddaan ka baxo maxaad ahayd adigu maxaad ahayd waxaad rabtaba ahaw saaxiib waa mahadsan tahay waxaad rabtaba ahaw aniga waxba igama gelin leefka akoonkayga bejka kaga jira haddaad daawan karta daawo okay aad baa u mahadsantahay samey waxaad samayn karto fadla waa ku jeeda nin dhallinyara inaad tahay haddaa awood u leedahay inaad wax samayn karto bal samey aan arko haye 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 haye
mid baa kuu sheegaya saaxiib anigu cadowga aan u jabinayo Puntland garan maayo balse waxaan ahay dadka ku nool Boosaaso shacabkeedii inaan xaqiiqada sheegana saaxiib mar walba waan u taagnaa weligeena waan u taaganahay waxna kama dhigay balse anigu wax uma arka aan wax amniga Puntland wax u dhimay inaan sameeyo aad adaa mudan saaxiib hay adaa mudan saaxiib halo وعليكم السلام جوجي سيده هore wuu ka degan yahay alxamdulillah may xabad ma joogsan balse sidii hore wuu ka duwan yahay may nimaad soo dhawaanaysa barteeda ma soo dhaafin xabadu dhanka madaxtooyada iyo aaga ma soo dhaafin saasa lagu soo warinaya laakiin balse de wali hubsima sax lama hayo oo cadeynaysa inay la wareegeen ya may airport waa gacanta dawladdu ku jira wax ka baxay ma lahan ya xagaas u badan yahay dagaalka xoogiisu may waxa ma sameynay aniga afka hore waxaan joogay xaafadahaas aan degan hay adaa mudan halo waa ku maqlaa alxamdulillah ilaa maadii waxaan joogaa xaafadahaygii waa joogaa may yaa weyn sorry saxan nafaaso anaa biisiya wallahi saxan lambarada wacay ay wareeriyey waa kaas alxamdulillah dhanka madaxtooyada xabadu xigaan xoogooda dhanka madaxtooyada xigtaa ma hadda niyo dhanka qabuuraha way ka xirantaa wadadu ciidan baa jooga may madaxtooyada way meesha la dhahay waa la qabsay laakiin maahan bahalkii waa qof isoo wacay waa garan waay wuxuu ahaa waa kolley xogaa uu ii dhaartay laakiin markii dambe caadi bay ila hadlay waa iska dareemi kartaa qof xanaaqsan oo isoo wacay waa صاحب هيا صاحب إن أدو مهزين صاحب هذا سيدا جارك إلى صو حريرية إن يجينا الدقيقة أما سعيدة هي صاحب إن بالإسئلالي إن وحول البويد عن صاحب أدو مهزنتين إن صاحب العدة أو آدي يقول بدن أوجد تلفك خبشين سوي وأضغط هاي إن أدو يجمع العلنية waxaad moodaa in ciidanku ay ka baxeen wadada tan uu taayirku u oolaa markii horeeto hadda way ka baxeen waxay u wareegeen dhanka kale inay u wareegeen baa loo baahan waayo in xabadu meel ay ka socoto lama kala garan karo waayo wiiftada xoogeedu xaggaas ka dhacaya waxaan hadda u dhowahay dhanka iyo aagii xirada aan dhahe isoo qabo geedka qabuuraha agtiisii waxaan ka soo wareegay dhankii horeeto oo ay baashu ka socotay waxaan u soo wareegay dhanka kaleeto xabadda dhawaqeeda ay waxay ka dhacaysaa xoogeedu dhanka iyo madaxtooyada iyo dhanka kaleeto taasoo dee mar walba dhami karta wax taas in wiiftadu maaragtay mar walba ay meel kasta kusoo dhici karto taas baa loo badinayaa walow dadku maaragtay badankood ay tuunsan yihiin dibadaha iyo bannaanka si ay u ilaaliyaan nafsadooda haddiiba loo soo dhowaado ay khatarta badan uga ilaaliyaan halo أيوة أدو ما صنتها مدن أدو ما صنتها إن واحد مدة إن تلفوننا إزدواج جوجينيين هو أدو بدن هلو وعليكم السلام
haye